إنا لله وإنا إليه راجعون ayaynu markaasi leenahay Allah u naxariisto walaasheen Faa'isa Maxamed oo ahayd ardayad dhigata jaamacadda Modern University kulliyadda caafimaadka oo maalin ka hor markaasi isku daldashay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Haddaba maxay ahayd sababtii ka dambeysay in ay gabadhan gacanteeda sababsato warbixintan aynu ku eegi doonaa daawada, balse marka hore daawada waxaynu ka codsanaynaa inaad muuqaalkan like saarto si uu saaxiibo badan u gaaro, una share garay saaxiibadaada Facebook si ay markaasi ugu duceeyaan oo maanta duco oo kaliya ayaynu markaasi inaguna u awoodnaa. Faaiso waxa ay degneed xaafadda Haanta Dheer ee degmada Daynile. Waxa dhacday maalinkii Isniinta ahayd ayay hoos ka soo xiratay hooyigeeda ay ka degneed ama qolkeeda. Waxa ay soo diyaarsatay xarig aad u adag kaasi oo ay ku soo xiratay fooqa sare ee alwaaxa. Xariga waxa ay u xirtay hab siriq ah qoorta ayayna ku soo xiratay. Muddo yar kadib waxa la soo jabay alwaaxii iyo xarigii oo iswata. 3 saac kadib ayaa waxa qolkii loogu tagay Faaiso oo nafyari ay ku jirto, kaadi iyo saxrana dhaxda ka dabaalanayso. Waxaana loola cararay isbitaalka Digfaar, waxa ayna koomo ku jirtay 2 maalin. Ugu dambeyn shalay ayay ku geeriyootay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo ay markaasi ajasheedii soo idlaatay. Allah u naxariistay marxuumad Faa'isa Maxamed ayaan la cadayn ilaa iyo haatan sababta rasmiga ah ee ka dambeysay inay qudha isdhaafido, balse arrimo qoyskeeda la xiriira ay wararku waxa ay sheegayaan in ay ka dambeysay gabadhan in ay isdisho. Marxuumad Faa'isa waxay ahayd gabar shaqaysato oo maalinkii waxay aadi jirtay farmashi, halka habeenkiina ay isbitaal aadi jirtay. Walaasheed oo ay la nooleed ayaa aamini la ilaa iyo haatan geerida Faaiso, waxa ayna iyana ku jirtaa xaalad isku dhexyaac ah oo ilaa iyo haatan waxa ay kala garan la'dahay carruurta ay dhashay, oo sida wararku ay sheegayaan waxa ay haatanba inkiraysaa in ay carruurtan aysan dhalin sabab la xiriiro isku dhexyaac yimid kadib markii ay qolka ugu gashay. Allah u naxariistay marxuumad Faaiso. Saacado ka hor ayaa dhinaceeda dhulka la dhigay marxuumad Faaiso. aynu si wadajir ah ugu duceyna walaalayaal in Rabbi jannadiisa ka waraabiyo, ehelkii iyo qoysaskii ay ka baxdana in Allah samir iyo iimaan ka siiyo. walaasheen Rabbi raali ha ka noqdo.